qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku soo waramaya in xukuumadda madaxweyne Donald J. Trump ay baaq u jeedisay dalalka caalamka kaasi oo ah inay la soo gaaraan ama se ay ka iibiyaan qalab caafimaad oo muhiim u ah wax ka qabashada caabuqa coronavirus. Mareykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalab ay ka mid yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqasku ku dhago, dawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka iyo afka lagu xirto, qalabka wajiga lagu xirto, dharka qafilan ee dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaashu ay xirtaan, iyo kuwa kale oo muhiim u ah wax ka qabashada caabuqa corona. Wuxuu sidoo kale Mareykanku dalbaday in codsigiisu mudnaan gaar ah la siiyo maadaama coronavirus uu ku sii faafayo guud ahaan dalkaasi. Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa ku soo waramaysa inay heshay dukumeenti muujinaya in madaxweyne Donald J. Trump uu dalbaday in laga caawiyo qalabkaasi caafimaad si looga hortago ama se wax looga qabto caabuqa coronavirus. Ilaa iyo hadda ma cadda inta dal ee aqbashay codsiga Mareykanka. Salaad Maxamed, Salaad Somali, Somalis TV.